Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada channelka Cabdicasiis Boodle. Maanta waxaynu ka hadli doonaa Dr. Gary Miller, saynisyahankii Islaamka qaatay. Dr. Gary Miller waxa uu aad iyo aad u xiiseeyaa cilmiga sayniska iyo weliba xisaabaadka. Waa xisaabyahan aad u abbaaro oo u dabagala wax walba oo caqliga geli kara. Dhalashadiisu waa reer Kanada, waxaana uu waqti dheer ka mid ahaa wadaadada fidiya diinta Masiixiga. Waxa uu ahaa nin aad ugu xidhan kiniisadaha. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Dr. Gary Miller waxa uu go'aansaday in uu baadhitaan ku sameeyo Qur'aanka Kariimka si uu u helo wax qaladaad ah oo uu adeegsado kolka uu muslimiinta ugu baaqayo inay diinta Masiixiga qaataan. Waxa uu filayay in kitaabka Qur'aanku yahay buug aad u gaboobay, kaasoo la qoray waqti fog, sidaa darteed ay sahlan tahay in laga helo qaladaad iyo waxyaalo iska hor imaanaya. Balse xaalku ma noqon sidii uu Dr. Gary Miller filayay. Waxa uu Qur'aanka ka helay waxyaalo aanu weligiis ku fekerin iyo arrimo ku noqday filanwaa. Waxyaalaha maskaxdiisa ka guuxayay intii aanu bilaabin akhriska Qur'aanka Kariimka, waxa uu Dr. Gary Miller aaminsanaa: kow, in Qur'aanku uu ka hadlayo waqtigii adkaa ee uu soo maray Nebi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. labo, dhimashadii xaaskiisa Khadiija, Ilaahay ha ka raali noqde ama dhimashadii wiilashiisa iyo gabdhihiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxyaalahan oo dhan kama aanu helin, balse waxa uu la fajacay waxyaalihii uu ku arkay Qur'aanka Kariimka, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen: kow, in suuraddan oo Qur'aanka ku jirta loogu magac daray Maryam, iyada oo weliba loo hayo qiimo aad iyo aad u weyn, qiimahaas oo aan laga heli karayn buugaagta ay qoreen dadka Masiixiga ah ama kitaabka Masiixiyiinta ee loo yaqaano Baybalka. labo, in Qur'aanka aan laga helayn suurad loogu magac daray Faaduma, inantii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ama Caysha oo ahayd xaaskii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waxaa kale oo doktoorku ogaaday in magaca Nebi Ciise 25 goor Qur'aanka lagu magacaabay, halka Nebi Maxamed 4 goor oo keli ah lagu soo qaatay. Dr. Gary Miller intaas kuma aanu qancin ee waxa uu sii watay baadhitaankii uu Qur'aanka ku hayay, isaga oo mar walba rajaynayay in uu wuxuun qalad ah ka heli doono. Akhriskii Qur'aanka ayuu sii kordhiyey, waxaana uu bilaabay inuu sii dhex galo oo uu dhuuxo aayaadka Qur'aanka ah. Waxa uu yaab iyo amakaab la kulmay kolkii uu akhriyo suuratu Nisaa aayadda 82. Aayaddaas ayaa leh: miyaanay fiirfiirinaynin Qur'aanka haddii uu ka yimid meel aan Eebbe agtiisa ahayn, waxa ay ka heli lahaayeen dhexdiisa iskhilaaf badan. Kadib Dr. Gary Miller sidaas ayuu ku qaatay Islaamka oo uu kaga baxay diintii Masiixiga. Intaa ayaynu ku soo koobi doonaa sheekada Dr. Gary Miller oo ahaa saynisyahankii qaatay Islaamka.